السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذين waxtaan kusoo bir hadii toog maanta la joogo wax ka codsanaya inaan muuqaalka sheekaysa la gareeso asxaabta gaasiso. Waxaan soo qaadan doonaa kulanka xalay u dhaxeeyay Atlanta iyo Bayer Leverkusen oo kusoo ilaa 3-0. Kooxda Atlanta ee la soo ilaasay ambitika dheer ay ku hayso Bayer Leverkusen waxay kaga badisay 3-0 oo finaal ah Europa League. Xavi Alonso ayaa xalay eedo dusha saarnay maadaama uu kusoo galay isbedel xog ku sameeyay laabkiisa تيبي كلا تحوسه إحنا كصديق لح دح إلا يورك وليبا أو يريو دفاعنا وبصدي لكن تسلم ده حاليا مع أتلانتا وأتكاسي يدلقاء السمايين وحين أصل بس إن يسدح يبرخ غير اللي وليبا شبقنا يكيل عشان كوحدة وليبا عم بيتك وسوقات هوريكا بندسليغا باي ليفركوسن لكن شايف ألونسو ayaa eeda dusha saara doona waxaana uu cid walba ay aragtay qaab uu xal u soo galay naadiga si walba ay ugu ciyaaray adiga loo gaarnaa final joogto wuxuuna is dhaliishada naadiga inay tahay Atlanta waliba ay badan tahay Liverpool istay ku soo dhigtaa loo yahay laakiin wuxuu istaa tii wax xasuustin naadi aad oo dulqaad badan oo ah pressing aad ugu fiican weerarkooda kubad boobaya ay ahayd laakiin wuxuu istaa nimankan difaac ka gal hadda goolka heshiidna waa kaasa laakiin taas way soo weysay Atlanta ay guush ku raadin xalana hambalyo macallinkii shalay laga ciiray Chelsea wajiri waxa la xiriirnaa xulka qaranka Ingiriiska laakiin taas bedelkeeda Manchester United ayaa rabto inay tababar ka dhigto Erik ten Hagna shaqadiisa koriga hoos waxay soo qoray wargeysada in uu naadiga ka tagay doono laakiin Manchester United inay hordagto marta sababtoo ah final ay joogta FA Cup ah waxay sugaysaa FA Cup ka markii qaadana u dhaco haduu uu qaado haduusan qaadinba waxa la leeyahay Manchester United way ka tashan doontaa ten Hag waxay hadda bedelkiisa xoogan iraadinayaan Pochettino kaasi oo maalmo kor laga ciiray kooxda Chelsea laakiin Pochettino bedelkiisa waxa raadinaya xulka qaranka Ingiriiska kaasi oo istigal inuu bedel laga yaabo laakiin ilaa hadda lama hubo laakiin Chelsea waxa la leeyahay waxay raadinaysaa tababareel si degdeg ah maalmahan ugu soo aadan oo uu dhaxsiyaha badan inuu waqti badan ka loo marabaan waxa ognahay tababarihii hore ay Pochettino ka kiraan waxay maamulka cusub ku dhawaaqeen inay waqti badan oo ka qaatay laakiin waxay rabaan tan bedelkeeda inay waqti badan ay gelin si uu dhaxsiyaha badan in naadiga u keenaan tababara bedel kale laakiin waxa hada ciyaartooyda badan la arkay ay ku soo qorayaan Pochettino oo ku maasta waqtiga laakiin in lagu kala qaybsan yahay muddo ciyaartooy fara badan taageerayo muddo ciyaartooy fara badan way aamusan ilaa hadda lama yaqaano sababta laakiin guud ahaan waxay ahaayeen wararka hadda la saddex maraayo in Pochettino in kooxda Manchester United la xiriirnayo laakiin xulka qaranka Ingiriiska asigana uu waliba dhinaciisa ay ka taagan tahay inay bedel ka garigaan Stoke kaasi oo hadda Euro-ga geey wuxuuna rajaynayaa inuu Euro dhammaystiro laakiin taas intaysan dhicin ka hor kooxda Manchester United waxay qorsheynaysaa inay si degdeg ah ugu soo qaado macallin Pochettino kaas oo bedel ugu dhigto Erik ten Hag haddii akhbaar kale cusub uu soo kordhaan inta kala wadaagi doona aad u mahadsantahay muuqaalka la gareeshay asxaabta gaarsi ma salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh.